dhammaadka sanad walba bisha December khaasatan 25 waxa aad la arkaa sawirada odaygani way gaaladu aad u wareejiyaan waqtiga Christmaska. Haddaba ma is weydiisay macnaha uu u fadhiyo odaygani gaalada. Fiidiyogan waxaan ku fiirinaynaa taariikhda iyo macnaha odaygani iyo waxa uu ka turjumayo. Please subscribe to your share to your like hadii la wanaaguna. Odaygani magaciisa waxaa la yiraahdaa Saint Nicholas. Oday Christian Bishop wadaadada Masiixiyiinta ama Katoligu ka mid yahay aad ku aaminsan yihiin Kristiyaanku. Odaygani wuxuu dhashay qarnigii 3 March 270 wuxuuna dhintay December 6 343 qarnigii 4. Wuxuu ku dhashay magaalada taariikhiga ee Bata Antalya ee dalka Turkiga. Odaygani wuxuu ka dhashay qoys hantiilayaal ah oo aad u aaminsan diinta Katoliga. Odaygani gaaladu waxay aaminsan yihiin ama Kristiyaanigu inuu ahaa oday mucjiso iyo karaamo leh. Waxay aaminsanaayeen in odayganu ahaa oday deeqsi badan oo carruurta iyo dadka masaakiinta gifti siiya. Sidoo kale waxay aaminsanaayeen inuu ahaa odaygani oday naxariis badan. waana sababta ay ugu dabaaldegaan waqtigani. Odaygani waayihii hore waxay u dabaaldegi jireen oo sameeyeen waqti la yiraahdo Feast Day ama Saint Nicholas Day oo ku aadanay December 6. Laakiin waayidii dambe way ka soo wareejiyeen oo waxay u soo guuriyeen 19 December ilaa 25 oo ay hadda u dabaaldegaan. Sidoo kale waxay sameeyeen waqtiga taariikhdani xabaalihiisa ayay u booqdaan qaab xaj ahaan ah oo ay soo xajiyaan ayagoo aaminsan in lagu dhaafayo dunuubta. Laakiin waxyaabaha cajaa'ibka waxaa weeye waqtigan ay dhahaan 25 December waa dhalashadii Nabiyullaahi Ciise ama Jesus inay yahayn oo waqtiga saxda ee Jesus taariikhdiisa sida uu Quraanku sheegayo inay ku aadan tahay waqti summer ama xagaag ah khaasatan waqti u dhow bisha August. waqti hadda ay u dabaaldegaan Christmas kuna ay tahay waqti kala fog oo waqti winter ah.